صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم لحبيب سوى محمد غير رسول النبي المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. waxaan rabaa halkan inaan hambaliyo iyo bogaadin ugu diro ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xuseen Roble. runtii ra'iisul wasaare waxaad ummadda Soomaaliyeed u cadeysay qofka aad tahay iyo iimaankaada meesha uu joogo kitaabkii lagugu dhaariyay culayska uu kugu hayo waxaad sheegtay wax dhab ah. runtii aad ayaan ku bogaadinaynaa abaalkeedana Ilaahay idinkiis adiga ayaa adduunkan ku arki doona aakhiradeedana Ilaahay baa ku jaazin doona. ummadda Soomaaliyeed oo dhanna way dareemi karaan wanaaga iyo cadaaladda aad maanta sameynayso. mudan ra'iisul wasaare mudanayaasha meesha joogay mudanayaasha baarlamaanka dhaqanka iyo gumaamul goboleedyada Soomaalida oo dhan qurba joogta inta dalka joogtaba ogaada dalkan inuu gacanta u galay cadow. ikraan tahliil dadkii dilay inay dileen aamino taas ha idinku filnaato cadeynta iyo fariinta ra'iisul wasaaraha. waxaan rabaa halkan inaan ugu sheego baarlamaanka cusub dalkan cadow ayuu gacanta ugu jiraa waxayna rabaan sida hore u sheegay inay shabaab dalka gacanta u geliyaan. waxay rabaan waxgaradka cuqaasha dadka kartida leh markay dhameeyaan ha u maleeyaysan u maleynin kuwa la jira ee iyaga saaxiibka ka dhiganaya. Soomaali hore oo u dhameysay waxay dhan canjeera sida uu kala sarreeyay loo kala qaadaa. dadka way kala qaybiyeen qofka fahamsan oo dhibaatada ay hayaan ka soo horjeeda way hormarinayaan. qofka aamusanna wuxuu u yahay plan B way ku soo socdaan. qof walbo dila oo xukuumada nimankan waa shabaab shaati dawladeed gashtay ha idinku filnaato cadeynta ra'iisul wasaaraha. baarlamaanka cusub waxaan ka rajaynayaa inay dalka badbaadiyaan inay u xulaan qof Ilaahay ka xishoonaya dalka iyo dadka iyo diintana qiimihiisa garanaya. qof walbo Soomaali ahna dareemayo inuu yahay qof la dhashay qof uu dhalay iyo qof xigtadiisa oo dadka ugu dhow. sidoo kale maanta dalka meesha uu maraayo waxaan dhihi karnaa maalin uu gaaray ma jiro sababtoo shaki weyn waxaan ka qabnaa systemkii dawladda oo dhan la wasaqeeyay. hay-adihii dawladda diblomaasiyiinta saraakiishi shaqaalihii rayidka meel walba oo Soomaali lagu hogaaminayay sanadihii ugu dambeeyay dadkii lagu qoray oo dhan ayaa in isha lagu hayo oo baahan. maxaa yeelay dad wanaagsan ku jiro shaki igama jiro laakiin 100 qofood haday qoran oo 5 qofood oo qoran ay ku jiraan 5taas qofooda ayaa wax ku ciyaari doonta. aada waxaan marka rabaa in indhax loo furo laga taxadiro dalkan inuu dal noqdo. cid walba ee ikraan tahliil ka hadashay kiiskeeda cid walba oo aamina kiiskeeda ka hadashay dhibaato walba oo soo gaarta mas'uuliyaddeena kuwan khawaarijta u shaqeeya ayaa qaadan doona. maalin walbaba qof muhiim dalka u ah codkiisa iyo aragtidiisa barnaamijka keensada ayaa waxay dhihi doonaan Allah u naxariisto iyo waa u tacsiyeynaa iyo shabaabadii aqliga Ilaahna sii indhaha wax ku arkay Ilaahna sii aragtideena aragtidii shalay ma ah fahamkeena fahamkii shalay ma ah. madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee gabaadka dhabarka geliyay wuxuu ahaa cadow iyo khawaarij dhabarka la galay ee iyaga mooda inuu wax ku noqonayo ee iyaga u tilmaamayo nin walba isaga ka hor imaado. madaxtooyada kuma joogaysid waa laga saaraa dalkana waa laga qabanaa cadaaladana waa lagu horkeynaa. Fahad Yaasiin oo isagana khawaarijta u shaqeeya ee saaxiibka ah iyo tiimamka hoos oo saraakiisha uu sameeyo isaga la shaqeeya dhamaantood waa la maxkamadeyn doonaa. dhiigii aamino dhiigii xildhibaan aamino iyo dhiigii ikraan tahliil iyo dhiigii cid walba mas'uuliyad haysa dalkan u haysa Ilaahay idinkiis waa idinku xisaabi doona. saraakiishii ka hortimid muddo kororsiga wali way joogaan. waxaan ku bogaadinayaa inay indhaha furaan sida aamino loo daba taagay yahay idinka la idin daba taagay xilalka marka uu rabo inuu idinka qaado sida xogta igu soo gaaraysa meesha uu idin wado wuxuu rabaa markuu xilalka idinka qaado askarta ilaaladii idinka ahna yiraahda goobahooda shaqada loo wareejiyo wadadii aamino in la idin marsiiyo. falaarta waa idinku soo socotaa inta aysan imaanin idinka inuu ciidda idinka hoos mariyo aragtidiina iyo aqligiina ina isku keentaan qabta muxuu ahaa team isku imaado oo si joogto u shira noqdo. dalka hore u badbaadisay taariikh baaldahaba kaga qorantiin dhameystira badbaadada dalka
cadowgana ka qabta ilaahay idinkiis sidoo kale waxaan ummad Soomaaliyeed rabaa maanta dalka Soomaaliyeed kaliya wuxuu ku badbaadi karaa qof iimaan iyo caqiido leh in loo dhiibo sidaad la socotaan hal nin oo abaanduulaha ciidanka dalka ah Generaal Dhaga Badan waad ogeydeen dalka wuxuu ka sameynay iyo sidoo ula diray qawaariista sababta ma garanaysan caqiido wanaagsan ayuu lahaa dadka Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shaakir iyo culumadii iyo dhalinyaradii la shaqeynaysay oo amisom cadow kale ma aragtay muxuu ahaa dibadda ugu imaaday aysan jirin shabaab kaliya cadow u ahaa dawlad iyo muxuu ahaa dalal taageerana aysan jirin sababta ay ula diriraayeen wax kala ma ahayn caqiidada saliimka ay kula diriraayeen dalkan maanta loo dhiibo qof ahlu sunna wal jamaaca ah caqiido wanaagsan aaminsan si dalka cadowga looga safeeyo gudaha iyo dibadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.